gudoomiyaha gobolka Banaadir gudoomiyaha maxkamadda gobolka xildhibaanada taliyayaasha bulshada rayidka ah iyo guddiga qaranka ee madaxa bannaan ee doorashooyinka dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka ma iloobin wakiilada maanta la dhaariyey ee shacabkooda uu u soo doortay inay noqdaan dadka ku matalaya golayaasha deegaanka ee degmooyinka gobolka Banaadir iyo madaxda ururada siyaasadeed ee ay ka tirsan yihiin dhammaantiin waxaan idin leeyahay marka hore hambalyo waxaa laga yaabaa barkiin haddii la wareysto noloshooda inay waqti aad u tiro badan ku qaadatay inay xil raadiyaan aad iyo aad uga hooseeya xilka hadda ay maanta ku fadhiyaan oo ay u mareen beeshii iyo xildhibaankii iyo saaxiibkii iyo taliyihii iyo hebelow madaxa ah iyo meel hal i geeyo waxa aad ummadda Soomaaliyeed tusteen adinka oon jidadkaa soo marin iyadoo dadka qaar idinku qoslayaan inaad xil heli kartaan shacabka Soomaaliyeed uu idin siiyey qabiil idinma siinin arrintaa ina waxaan jeclahay aad hoosta ka xariiqdaan dad Soomaaliyeed oo idinka aydan aqoonin oo qof aydan ula soo hadal oo aydan u heeb sheeganin ayaa markay arkeen barnaamijka ururadiina adinka idin soo doortay sidaa daraaddeed waxaad u baahan tihiin ama waajib idinku ah inaad dadka Soomaaliyeed u abaalgudaan iyagoo Soomaali ah meesha lagu tirtirayo ceebta qabiilka meeshaan waaye cid kugu lama jirto oday dhaqameed kugu ma leh kaaba qabiil kugu ma leh anaa meesha ku geystay ma jirto xildhibaan kuma geysanin shacabka deegaanka aad matasho ayaa ku geystay waana meesha aan rabno dadka Soomaaliyeed oo dhan inay wada gaaraan qof kasta oo mas'uuliyad dadka u qabanayana inuu sidaas ku yimaado ayaan doonaynaa waa la magacaabay waa soo dhamaatay maanta golaha wasiirada wuxuu ansixiyay in xataa qof shaqo loo qori kara aysan jirin aanan u tartamin marka tusaalihii saxda ahay idinka waay waxaan rabaa mar kale anoo hambaliyeynayo inaan idiin sheego maxaa u baahan tihiin wax badan aan idiin sheegaya horta sida caadiga ah marka dad sidaan oo kale la soo doorto anigana lama dooranina oo la soo magacaabo oo la soo dhaariyo shaqada ugu horeeya qabtaan maxaa waay xafladii samaystaan waana taa u malaynaa inay u ballansantihiin jumcada iyo sabtidii aad u ballansantihiin horta waxaan idin leeyahay xafladaha hoteelada aan lagu qabanina xafladaha iskoolada iyo jaamacadaha iyo degmooyinka iyo garoomada ku qabsada dadka mahadcelinta idinku leh dadka la rabo in idinla dabaaldegaan ma aha kuwa hoteelada iyo meelahaas iyo yimaada ma aha waa kuwa masaajidyaha joogo waa kuwa iskuullada joogo waa kuwa dhalinyarada ee garoomada iyo joogo midaasaan idin leeyahay طبعا 5 sano hadda la idin doorto idin bilaabatay sida caadiga ah qofka marka la doorto oo xilka la siiyo wuxuu ka fikiraa wuxuu qaban kara markuu qabto xagee tagi doontaa meesha dambood u socotiin waxay ku xiran tahay shaqada aad berita qabanaysaan haddii marka shaqadu ku dhamaato warwareeg iyo Facebook iyo TikTok iyo hebelow iyo kan iyo xafiisyo wareeg laakiin deegaanka aan lagu laaban dadku waa kula xisaabtamayaan mana siri kartid mar kale sababta doorashada loo keenayna waxa waaye dadka kale waa la sirsiri karaa
laakiin dadweynaha lama siri karo dadweynuhu shaqo ayay idinka rabaan haddaan nahay bahda waxbarashada si gaaran idiin soo dhawaynaynaa deegaanadiina jaamacadaha ku yaalla waa goobihii la inku doortay dugsiyaha ku yaalla waa goobihii la inku doortay meesha codkiina uu yaallo waa dugsiyada iyo goobaha wax lagu doorto waa jaamacadaha waa dadka mutacalimiinta ee ra'yiga leh insha Allah waxaan rajaynaynaa bishaan bisheeda kaleeto in gobolkan banaadir iyo degmooyinkiisa isbeddel xooggan aad ka samaysaan haddii ilaahay yiraahdo mar kale jaamacadda ummadda Soomaaliyeed jaamacadaha kale ee dalka uu leeyahay waxay diyaar idin leeyihiin inay idin garab istaagaan inay idin tababaraan inay cilmi baaris idinla sameeyaan in mashaakilka bulshada jira ay idinla baaraan inay talooyin ka keenaan meesha marka waqtigiina ugu badan uu ku baxaayo ha noqoto goobta waxbarashada ay jirto waa mahadsantihiin hambal iyo mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu